gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, wasiirada, madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, madaxda gobolka Banaadir, odayaasha dhaqanka ee sharafta leh ee maantayto soo camiray meeshan, gabdhaha Soomaaliyeed, dhalinyarada, saraakiisha saxaafadda, dhammaan kasoo qaybgalayaasha, waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, sida la sheegay dee tacsi ma aha, waa madal lagu soo bandhigayo qiimaha iyo karaamada ay ku dhinteen shuhadada sawirkooda iyo taariikhdoodaba ay halkan ku qoran tahay ama ay ka muuqato. waan ugu hambalyeynaynaa runtii jidkay ku dhinteen. kulligeenna waxaan tamaninaynaa inaynu halkaas marro, maadaama ay siday culimmadu caddaysay ay jid xaqa oo jannada lagu aadayo ay ku geeriyoodeen. waxay la tahay marka koowaad, Soomaaliya waxay maraysaa marxalad taariikhiya oo jidka bartamihiisa ah, oo dhinacna halis ah, dhinacna rajadu ay aada u muuqato. dhinaca halis bay ka tahay, maxaa jira haddii dagaalkan laynagaga guulaysto, way adag tahay inaan dib dambe isu soo abaabulno oo hawl waqti dheer bay qaadan kartaa. laakiin waxaa muuqata si degdega weliba oo aada u dhaqso badan inaan ku guulaysanay. waxaa muuqata in ay inta la filayay in aada uga yar in dalkan lagu xoreyn karo ayaa muuqata. waxaan rabaa inaan ka bilaabo, horeyna waxbaa looga sheegay, horta maxay ku dhinteen cilmi iyo hibaad iyo kuwo badan oo maalin walba dhintaay, maxay u dhinteen, maxay ku dhinteen, maxay doonayeen. Soomaalidu dagaallo waan soo geli jiray, kuwo badan baa inaga dhiman jiray. in badan waxay ku dhiman jireen iyagoo qabiil u dagaalamaya. u malayn maayo cali madaxweyne iyo qolo kale inay dagaalamayeen markii uu iyo qabiil kale markii uu cilmi dhimanayay. hibaadna sidoo kale u ahaa. marka dagaal qabiil kumay jirin. xoolo iyo maal dad kale leeyihiinna niman doonanaya may ahayn. waxay u dhinteen intii ay culimmadu sheegeen oo ah iyagoo difaacaya diintooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda, ahalkooda ayagoo difaacaya ayay dhinteen, siday ayaguba afkooda ka sheegayeen oo aada maqlayseen. oo markhaati madoona waxaan iska leenahay ma laha, iyagiiba inala hadlayay oo laynooga reebay dhaxal ah inay inoo sheegaan waxay u dhinteen. iyagaa fasirayay. waxaa runtii la yaab leh, qofka muslimka ahi ma cabsado. sababta uusan u cabsaninna waxaa weeye wuxuu rumaysan yahay waxay sheegayeen oo ah inay dhimanayaanba yaqiinan ayay u rumaysnaayeen markii ilaahay la doono. ama dagaal ha ku jiro ama yuusan ku jirin, laakiin qofka markii ilaahay uu ugu talagalay inuu noolaadana wuu noolaan, markuu ilaahay ugu talagalay inuu dhintana wuu dhimanaya. walaalayaal, dagaalka noocan oo kale ah wuxuu leeyahay price iyo cost aada u adag buu leeyahay, oo yani xanuun leh. xanuun buu leeyahay. cid walibana way xanuunsan, cadowguna wuu xanuunsan, adna waad xanuunsanaysaa, wuu ku soo gaadhay xanuunku. laakiin dee siduu ilaahayba sheegay, in takunuu ta'lamuun fa innahum ya'lamuun kamaa ta'lamuun. yacni haddii aad idinku xanuunsanaysaan, ayaguna saaad u xanuunsanaysaan oo kaleun bay u xanuunsanayaan. marka dagaalku wuxuu leeyahay bricekiisii bay dadkan sharafta leh mujaahidiinta ay ka mid yihiin inay ku baxaan.
marka kuwa badan baa inaga dhiman maalin walbana way inaga dhintaan laakiin waxaad isbarbar dhigtaanun bal isbarbar dhiga innagoo iska fadhina oon dagaal ku jirin oo aan uba socon oo aan kaba warhayn inta inaga dilayeen tiradooda iyo markaynu dagaalka la gallo inta inagaga shahiida tiradooda bal isbarbar dhiga haddii aynu dagaal kula jirno 5 sano 6 sano dagaalka foolka inta inagaga dhimatay iyo inta zooba keliya ku dhimatay haddii la isbarbar dhigo inta zooba keliya ku dhimatay baa ka badnaan doonta 5 sano dagaal kula jirnay oo foolka sidaa darteed dagaalka aan nimankan kula jiraynay wuxuu yaraynayaa khasaaraha iyo dhimashada dadka Soomaaliyeed buu yaraynayaa ma badinayo dagaalkii la geliyay dadka oo waa lagu baabaayo oo waa lagu dhintay maaha ee dagaalkani wuxuu badbaadinayaa dadku badbaadinaya marka dagaalkan waxaan u horeynaa dhimasho waxaan u horeynaa maal waxaan u horeynaa waqti inta way galaysaa innaga maxayna la gudboon maadaama ay shahiideen waxay la tahay waxayna la gudboon waa inta inoo sheegeen fariimaha iyaga inoo sheegay marka waxayna la gudboon waxa weeye jidka ay hayeen waa inaan ku soconnaa oon ka mira dhalinaa oo nimankaas khawaarijta ma garanayo magaca shabaab waxa loogu wado nimankaas magac turaafka islaamiga ay u bixiyay oo khawaarij la yiraahdo magac ay baleeyihiin culimadana waxay noo cadeeyeen in ay nimankan shaqadoodu ileen khawaarij qabiil khawaarij la yiraahdo ku soo dhashay ma jiro sideedaba khawaarijta waxa lagu noqdaa amal shaqa lagu noqdaa qofka marka laga helo shaqooyinkan 1 2 3 4 khaarij buu noqonayaa khawaarij buu noqonayaa culimadu waxay noo sheegeen shaqadii amalkii lagu yaqiinay khawaarijta inay leeyihiin nimankan ama hebel ha ahaado ama inay hebel ha ahaado wuxuu raba ha ahaado nimanka marka khawaarij baa la yiraahdaa shariicadu khawaarij bay u taqaanaa ashabaab wax la yiraahdo ma jiro sideedaba marka waa inaan sideedaba aan bedelo khitaabkaas shabaab waxaas ma jiraan nimankan waxa la yiraahdaa khawaarijta markii la yiraahdo diinteena islaamku sida loola dhaqmo way taqaanaa si marka aan dadka confusion loo gelinin oo dadku ayna ugu wareerin shabaabku muslim baa maxay magacaas waan ka bedelaynaa kan shariicadu u bixisay la yaqaano oo ay ka shaqeeyaan baan u bixinaynaa waxa la yiraahdaa nimanka khawaarij baa la yiraahdaa koladii khawaarij la yiraahdo marka waa la yaqaanaa birta laga aslo waa in birta laga aslo xal kale ay leeyihiin malaha marka si aan dadku ugu wareerin waa in laga daayo magacyada kale shabaab iyo wadaade iyo hebelay waxaas ma jiraan waxaa dhamaaday marmarsiinihii dadka qabay wadaadadu may hadlaan anigu ma garanayo wadaadada waxa laga rabo culimada ma garanayaba culimadu si kasta u hadleen intay yimaadeen bay shir ka hadleen TV ay ka hadleen shirar bay ka hadleen marka hadaynu inagu fulayeenahay oo cabsanayno culimada inaan eedaha saarno la yiraahdo culimadu may hadlaan may kaneeyaan maya culimada waxa laga rabaa inay bayaamiyaan waxan dagaalkan lagu jiro muxuu yahay inay bayaamiyaan baa laga rabaa sharcan wayna bayaamiyeen wixii inta ka soo haray in lagu noqnoqdo oo la daba socdo waa nooc fulaynimo kamid oo mushkiladayna haysata kamid ah laakiin culimadu warku way cadeeyeen dagaalkan wuxuu yahay way cadeeyeen waxa la inaga rabo waxa waaye inaan qaadano sidaas u qaadano ku dhaqanaa la inaga rabo nimankan laba arrimood laba meelood oo dadka Soomaaliyeed muhiim u ah iyo inaga dhex galeen waa inaan ka dhex saaraa mid waxa waaye waa diinta nagu muslimiin baan nahay marka qofku hadduu intuu ku soo hagoogto uu ku diimeeyo oo aayado quraana ku akhriyo oo xadiista ku akhriyo waa arrin halis ah waana sida diinteenu ay sheegayso nimankaasi inay inaga salaad badan yihiin
oo inaga soom badan yihiin oo inaga quraan akhris badan yihiin nabigeena ba sheegay calayhi salaatu wasalaam qof sidaa samaynaya marka haddana inaad shar ka filatahay dhaqanka Soomaaliya iyo qofka muslimka waxa uu yaqaan ma aha marka diintii bay inaga dhex galeeno ayagii baa la dhageysanba wala dhageysanayaa ilaa aayado quraan oo akhrinayaa markaasay intii sane la soo dhaafay oo dhan waxay sameeyeen inay diinta ayagu iyo khitaabkii diiniga qaataan oo dadka culimo u noqdaan ayagii baa culimo noqday culimadeeni way isgaabiyeen way cabsadeen sida loo dilayay ayagoo salaad ku jira ayagoo masaajid ku tukanaya way isgaabiyeen iyo qaar ku wareerayba sidaba ku wareeray oo qudhoodu nimankan fasiri waayay oo go'aan ka qaadan waayay intay isla wareegayeen qudhoodu culimada ayaa intii khitaabkii diiniga ay qaateen nimankani ayay dadkii wadaado u noqdeen markii ugu horeysay ee wadaadada culimadeena aanu la kulmay waxaan ku yiri war diintii culimo khitaabkii wadaadnimadii waa la qaatay wadaadnimadii horta soo dhacsada oo nimanka ka soo dhiciya oo diintii khitaabkii dadka u sheegiisii iyo diintii loo sheegayay nimankii ayaga baa qaatay barota dadka ka soo dhiciyo diintii saxda ay dadka u sheega taas waa dowrka culimada waxaan ka rabnaa nimanku diintii wali way akhrinayaane dadku waa inay gartaan ninkaas diinta uu akhrinayo daahirkeedu inay diin tahay laakiin baatinkeedu waxa ku jiraay inay been tahay oo uu tafsiir khalad u saaran yahay waa inay dadku fahmaan culimada laga rabaa inay u sheegto waxaan rajaynayaa inay hadda culimadu bilaabeen waxaan rajaynayaa in ay dadkuna fahmeen baan rajaynayaa in saas la fahmana waa laga maarmaan meesha kale inaga dhex galeen waxa weeye waa qabiilka ninkii waa inay hebel bay ku leeyihiin ugaasiyay samaysteen qabiilkii bay ku dhex jiraan qabiilkana dadka Soomaaliga muhiim buu yahay maxaa jira waa dhaqan inuu soo jireen ah oo aan leenahay oo inaan reeranahay oo qabaa'il nahay bulsho ahaan waxyaabahan ka dhisanahay kamid ah marka qabiilkiina way naga dhex galeen odayaasha waxa looga fadhiyaa inay qabiilkooda soo dhacsadaan oo nimanka ka dhex saaraan ama qori qaado ama dad kala samee mar haddaad koofidii xiran tahay reerka ka soo dhici nimanka mas-uuliyaddaas aday ku saaran tahay reerkaaga soo dhacso suldaan kale kugu garab sameeyeen wabar kale kugu garab sameeyeen isin kale kugu garab sameeyeen reerkii way goosteen qaybay la tageen marka waa inaad reerkaagii shirsato waa inaad reerkaagii soo ceshato oo ka ceshato labadaba way naga dhex galeen marka dhibaatay nagu tahay marka waa inaan ka saarnaa labadaba malaygii la sheegayay malay baan nahay dadka ku dhex jirnaa ay oran jireen malayga labada meelood bay dhex galaan marka labada meelood waa in laga saaro banaanka la dhigo marka way iska dhimanayaan labadaas waa in laga saaro nimankaas xukuumadda dan qaran runtii markii ay timidba qorshaheeda koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba wuxuu noqday in wadankan aan waxba laga qaban karin qofkii ku dhaha waxbaan ka qabanayaa iyadoo shabaab joogaan qofkaas ama waxbuuna fahamsanayn wadankan uu waxba ka fahamsanayn ama naftiisu been u sheegaya wadankan dhaqaalihiisa waxba lagama qaban karo serviceskiisa waxba lagama qaban karo dadka caafimaad lama siin karo waxbarasho lama siin karo dhaqaalaha lama horumarin karo waxba lama qaban karo intay shabaab joogaan markii runta la soo gaaro waxa weeye inaan laba kala dooranno sidaa aan nahay inaan ku noolaano iyo haddaan rabno inaan ummadaha gaarno oo aan dawladdu mas'uuliyad qaado oo dadka dalka hormariso oo shaqo abuur samayso oo dhaqaale abuurto oo technology-ga la dhiso oo waxbarashada la dhiso oo caafimaad dadka la siiyo haddaan rabno sidaas waa inaan nimankaas isdhaafinaa dalkan marka dib u xoreyn ayuu u baahan yahay sidaa darteed dawladdu waxay ku dhawaaqday dagaal rasmi aan ku jirnaa marka dagaal dalku markuu ku jiro waa la yaqaanaa siduu u dhaqmaa sidii uu dhaqmayaan rabnaa in loo dhaqmo waxyaabo mamnuuca jira oo loo dhawaan karin waxyaabaha mamnuuca waa inay shacabku ogaadaan waa inay saas kula shaqeeyaan
waa inay dul qaataan mararka qaarkood haddii xataa xorriyadaha la taataabto. ma jiro waddan intuu xukuumaddiisu dagaal galay oo xukuumaddiisu ay soo jeedisay qodobo muhiim ah oo ah go'aamo ay gaadhay dagaalka lagu galo oo 3 arrimood ka tarjumaya: dhinaca fikirka inay kala dagaalanto, dhinaca maalka inay kala dagaalanto, iyo dhinaca militariga iyo dacaayadaha inay kala dagaalanto loo sheegayo iyo propagandada. intuu nin iska soo istaago uu yiraahdo anigu saxafi baan ahay oo yeeli maayo waxa wax soconayana ma laha adduunka meeluu ka jira carwa kaas soo sheegay meel ay adduunka jirta ma laha mana dhihi karo meel uu ka dhihi karo ma jiraan Soomaaliya ka dhihi karaa dawladdu marka aqbali mayso dagaalka intay ku dhintaan shuhadadaas maalin walba 10 ay ku dhintaan iyo 20 30 40 loo dhinto in looga propagandeeyo Muqdisho ma aqbalayso. ninka raba inuu propaganda Muqdisho uga sameeyo ha u taga ayaga dhexdooda propagandaha ku sameeyo ma u tagi karo. hadday arkaan way gowracayaan, haddana wuxuu rabaa dagaalkooda inuu Muqdisho uga propagandeeyo ayuu rabaa. shacabku waa inay ogaadaan dagaal baan ku jirnaa. kuwaas qayb ka mida propagandistayaasha ee ayaga waxooda u faafiyay waxay ka mid yihiin dagaalka kuwa ayaga la safanay ka mid yihiin. marka meesha xorriyadba ma taalaba xorriyad iyo saxaafad iyo sheekadaas ee maanagaaba isla dhowaabaad la jirtaay waxoogii baad propagandaynaysaa waxoodii baad u akhrinaysaa maantay qabsadeen heblay dileen xagay ka tuureen way jabiyeen way soo socdaan waxaasaa la akhrinayaa. haddana waxaa la rabaa in la yidhaahdo saxaafadaan kusoo dalgabanayaa oo saxafi baan ahay oo waxaan ahay xorriyaddaan ka shaqeeyaay oo kan baan ka shaqeeyaay waxaas waxba kama jiraan. waxaas maraykanka ha ku sameeya waa kaas meelaha adduunka ugu xorriyadda badan bal waxaas laga sameeyo cid ogol ma jirto, dawlad ogol lama jirto. sidaa darteed dawladdu tallaabay ka qaaday wayna ka qaadi doontaa ciddii isku dayda waxaas. waxaa kaloo ay tallaabo ka qaadaysaa kuwa xoolaha ku gargaara. dadkanagii baa la baabiinayaa, buundooyinkanagii baa la goynayaa, ceelashayadii baa la gubayaa, carruurtanadii baa la kaxaysanayaa, dumarkanagii baa la qarxinayaa. haddana waxaa weeye xoolahan dhiibayaa waan cabsaday oo jilib baa la iga yeedhay waan sii socdaa. ma soconayso, lama aqbali karo waxaas. dadku ma yeeli karaan. dadka Soomaaliyeed waa inay kuwaasaa idinkaga xun, waa inaad iska celisaan kuwaas. wax la aqbali kara maaha. dadkan kale dhexdhexaadinayay oo oday baan ahay oo nimankaa iyo dadkaan isku wadaa oo anaa waxoogaaga la iigu dhiibaa u geeya no ma soconayso. wax soconaysa ma laha. qalin ku dhiig le, carab ku dhiig le, lacag ku dhiig le, socod ku dhiig le, cumaamad ku dhiig waxaasoo dhan wax la ogolaan kara maaha. dalkan dagaal buu galay, dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan dagaal baa la galay. dagaalka dawladdu gashay oo ay iclaamisay dadkeennana lagu badbaadinayo aana isku xoreynayno. waajibkeennu waxaa waaye inaan kulligeen halkaas aadna la rabaa. marka taas waxaan dhihi lahaa inaan si fiican u ogaano dagaal baan ku jirnaa. weli dadkii waxaan ku kari la'nahay war dagaal baad ku jirtaan. dagaalka marka lagu jirana dalku dabeecaduu leeyahay, dabeecadihii aan qaadanno. taasna intaasan dhihi lahaa. xaggee dagaalka laga bilaabay? istaraatiijiga dagaalkan waxaa hogaamiyaa wasaaradda gaashaandhigga, waxaa hogaamiyaa xoogga dalka Soomaaliyeed ee SNA ayaa hogaamiya. ayagaa hormuudka ah, ayagaa safka hore ku jira, dagaalka ayagaa ku jira. meesha laga bilaabayo iyo meeshuu ku dhammaanayo iyo xagga laga bilaabayo kulligeen dadkeennu waxay rabaan in qof walba ku ishaaro oo ku dhaho waxaan bilaabaynaa, waxaa fiican in halkaa laga bilaabo. kulligeen istaraatiijistayaal baan nahay, kulligeen saraakiil baan nahay, kulligeen waxaa la rabaa arrimahaas mutakhasisiin baa leh, dad baa operations ugu jira, saraakiil baa jirta, waa lagu daba taagan yahay. meeshuu ka bilaabanayo, sida loo bilaabanayo, ayadoo la waafajinayo awooddeenna, ayadoo la waafajinayo prioritieskeenna, ayadoo la waafajinayo hab meeshay tahay hadda in la aadayo meesha berri ay tahay. wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed baan uga dambaynaynaa, waana ku kaalmaynaynaa. marka in qof walbaba suu asagu rabi lahaa
yuusan cabirin dawladnimada aan baranno institutionska aan ogaano ana aaminno institutionskeen ayagaa wada ayagaa ina hor socda ayagaana la shaqaynayna meeshay dhahaan ha loo sii jeesaan la sii jeesanayna meeshay dhahaan halkan ha lagu bilaabo maanta ku bilaabanayna berri meesha ku bilaabana waa ku bilaabanayna wacyigelin baa dagaalka ka horeysa wacyigelinaa socda meelaha aan hadda dagaalku ka bilaaban dagaal nooc kale ah ka socda sidaa darteed waxaan rabnaa intaasna la ogaado annagu wadamada aan tagno iyo safarada aan tagayno kulligood siyaaxad hal xaboon noo ama kama nasanno laakiin waxaan gelinaynaa waxaan u raadinaynaa taageero dagaalka dagaal baan ku jirnaa waddan kasta markuu dagaalamayo madaxdoodu maalinta 5 jeer bay safraan ra'yul caalami aan dhisnay oo dagaalkeena gula jira kuwa dariskaan dhisaynaa oo dagaalkeena la galaya oo laga yaabo haddii ay mararka qaarkood ay ku dhabar jabin karaan si ku dhabar jabin karaan waxaan rabnaa inaan dhisno ra'yul caamka caalamiga ah midka dariska ah midka Soomaaliyeed dagaalkan waan safraynaa habeen iyo maal waan soconaynaa qof walba meeshuu leeyahay ka rabnaa wasaaradaha dawladdu wasaarad kasta waxay ka shaqeysaa dagaalka ka gashay meeshay ka leedahay halkan waxaa joogtay wasaaradda haweenka iyo qoyskooda ogtihiin oo runtii ayadoo waliba markii dambe ay gudoomiye ku-xigeenka hogaaminayso waayagii la sheegay ayagoo tuutooyin wada oo cunto wada oo lacag wada ka degay meesha dagaalku ka jiro furimaha ka degay waa shaqadii wasaaraddaas way ku jirtaa waxaa halkan ku jira wasaaraddan hadda maanta aan hadda joogno shaqadani waa shaqadii laga rabay wasaaradda waa qorshaheedii dagaalka qaybtay ku lahayd waa kuwa dibidhiso ay ku leedahayna way dhici doonaan haddii la yidhaahdo oo meelaha kale ka dhici doona wasaaradda biyaha waa ku jirtaa beledweyne waa arkayseen aniga hadda irtaan ceelal baan geynay kuwa riigaan geynay kuwa gacmeed baan geynay waxa ka shaqaynaya waa wasaaradahaas kuwa caafimaadka hadda irtaan waxa ka shaqaynayna ambulaasyo la geynayo iyo dhakhaatiir sidooda u tagaayo dagaalka wasaaradda caafimaadku qaybtay ku leedahay waay wasaaradda difaaca way ku jirtaa waad ogtihiin midda amniga iskaba dhaaf horey ugu jirtay wasaarad kasta meeshay ka leedahay ay dagaalka kaga jirtaa xukuumaddan oo dhan waxay ka shaqaysaa waa dagaalka ayay ka shaqaysaa abaaraha runtii waa laga shaqeeyey wax badanaana laga geystay aad iyo aad looga shaqeeyey waana laga shaqeeyaa guddi baa ka shaqeeya 24 hours waxay u taagan yihiin inay meelaha daran waliba inagoo xaaladeenno aad ogtihiin inay diyaarado intay cunto ku guraan ay geeyaan meelihii ugu darnaana hadda way fiican yihiin runtii oo meel fiican la maraya waxaan marka hal mar ku dagaalamaynaa inaan abaarta dadka uga gurmano iyo inaan khawaarijta la dirirno iyo inaan caalam ra'yil caam na taageero dhisno iyo inaan ciidamadeenna iyo dadkeena Soomaaliyeed aan isku xidhno dhammaan intaasoo isku xiran baan ku dagaalamaynaa iyo inaan cadowga kaabadihiisa inaan jarjarno oo ay ka mid tahay kaabada fikriga iyo maskax ku taageerka iyo dadka diinta uga dhigaya warkooda inaan la dirirno inaan dadka u bayaanino diinta oo culimadu runtii harkacayso wasaaraddu qaybtay ku leedahay ugu weyn ay tahay maalin kasta oo meel la jooga Sheekh Muxtaar waa jooga TV-yada culimada geeya degmooyinka ayuu geyn doonaa culimo u xil saaran degmo kasta oo wacyigelinta iyo dadka inay diinta fahamsiisa saxda ah ka shaqeynaysa haddii la yiraahdo intaasoo jabhadood bay dawladdu ka dagaalamaysaa waxaan rabnaa marka shacabku inay sidaas u fahmaan lana socdaan lana shaqeeyaan oo dhammaanteen aan gacmaha isqabsanno oon cadowga iska celinno muqdisho cadowgii waaweynaa ee furmahay dawladdu ka dagaalamaysaa gobolka banaadir ayaa u xil saaran odayaashaana u xil saaran shabaab taangiyo wata ma jooga meeshaan muqdisho ma joogaan ma joogaan kuwa taangiyo wata iyo kuwa qoryo waaweyn wata iyo waxaas ma jiraan wiilasha yareer dhuuban ee meelaha ku wareegaysanaya mas'uuliyadda idinka qaadaysaan maxaa waayaad anaga noogu soo duwaysaan annagu waxaan aadaynaa bannaankaan u baxaynaa xagaan kusoo dagaalamaynaa meelaha bannaanka la aadayaa waxaa laga rabaa odayaasha gabdhaha way dadaalaan 24 hours ay ka shaqeeyaan waana ognahay ama xuuraan ha noqoto maalin dhaweyd kaaraan waad ogtahay waxa ka dhacay habeen dhaweyd waa markii ugu horeysay intuu mid mujrima oo khawaarijta ah intuu xabad ku dhufto qof muslim oo Soomaaliya
oo iska dhaqaaqaa la ag mari jiray markaas la dhigi jiray uu dilay waa ka sii socda waxaan gaadhnay shacabkeenu hadda intay ka daba cararaan inay asagoo nool soo qabtaan soo guul ma ah waa dhiiranaan la dhiiraday waa sidii garowa ka dhacday markii sheekh cabdiqaadir lagu duwo oo kale dadku intay ka daba ordeen inay asagoo waliba dagaalamayo xabado dhacay dadka inay dhab siiyaan tiibaas halka xamar ka bilaabatay fulaynimadiiba waxa asalka oo dhan meeshan ay ku jirtaa haddaan meeshan ka xorowno fulaynimadu naga dhammaato nimankaas way iska tegayaan marka hadday diinta aan ka dhex saarno oo ayna inaga dhex gelin qabiilkan aan ka dhex saarno ugu dambaystana qalbigeena iyo ay dhex degan yihiin fulaynimada aan ka saarno nimankaas way iska tageen waan guulaysanay waana dagaalamaynaa waana ka adkaanay waxa inoo dhimani waxa weeye waa wax yar waaye magaaladan gobolka banaadir baa liid garaynaya odayaashu way la shaqaynayaan dawladdu way dadaalaysaa laakiin waxaan rabnaa amniga oo infrastructureskiisii oo dhan lasoo basraa lasoo burburiyey kuwii u socday oo dhan baa lasoo burburiyey meelahay ka soo gelayeen oo dhan baan magaalada waxa weeye ka saarnay waardiye adag marka waxa ku haray meelaha soo galgalay intaa waa iska celin kartaan iska celiya reer muqdisho iska qabta gabdhaha Soomaaliyeed daba socda ayaga iska celinayay hal la taageero odayaashana sidaas inay ogaadaan rabnaa sharafta leh runtii dadaal badan baad samayseen idinkana aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo wasaaradda iyo runtii kaalinta weyn ay jihaadkan kaga jirto mar walba wasaaradaha kale sidoo kale runtii waan u mahad celinayaa odayaasha waan u mahad celinayaa gobolka banaadir way mahadsan yihiin cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay way mahadsan yihiin dhammaantiin aad iyo aad baan waxaan intaana ka tegin aan rabaa inaan mar kalena ka sheego halkan meesha wax ka bilowdeen waxay ahayd hiiraan magaalada beledweyne iyo hiiraan ereyadaas guud ahaan guul baana ka jirtay aniga darhaad baan ka yimid ciidamo xoog leh meeshaas waxay noqotay furin muhiim ah ama qalcad xataa ciidamada deegaanada kala aadaya intay ku degaan laga sahayo oo ay ka sii socdaan oo ay meelo kale ka sii aadaan ayay noqotay niyad wanaag iyo ciidan iyo tiro iyo micnaba way yaaleen meeshaas laakiin magaalada way burburtay waa la burburiyey magaalada beledweyne waa la burburiyey qarax 3 qarax oo isdaba socotaa ku dhacday markaas dhulkii magaaladii waa bannaan dad badan oo hooyooyin badan oo meelo yaryar shaah ku karsan jiray waxooda oo dhan waa burbureen ganacsato waxooda waa ka burbureen magaalada waxay u baahan tahay in la garab istaago dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale magaaladaas in la garab istaago kuwa dawlad goboleedyada jooga qaybahooda kala duwan oo dhan haday maamulada yihiin haday civil society yihiin haday gabdhaha gaar si gaar u yihiin haday ganacsato yihiin kulligood dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa beledweyne inay tagaan intiinaan odayaasha waxaan ka codsanaynaa beledweyne taga soo booqda soo dhiiri galiya one day soo joog odayaasheena sharafta leh inay tagaan gabdhuhu hays abaabulaan oo ha tagaan beledweyne dhalinyaradu ha tagaan waxa la geyn karo ha la geeyo ha la garab istaago beledweyne kaliya ma tihid ha la yiraahdo waan ku garab taaganahay ha la dhaho walaalaha naatiin ha la yiraahdo sidaas ay at least ugu yaraan inta inaga mudan yihiin waa inta kuwa dibadda jooga shalayna mar baa la hadlay iyagoo shir ku leh global diaspora Soomaaliya haddana waan ku celinayaa dadka Soomaaliyeed ee dibadda jira ee diasporaha waxaan rabnaa inay beledweyne tagaan waxaan rabnaa inay dib u dhiska magaaladaas ay kow ka ahaadaan ayagu inay ka ahaadaan rabnaa hatta qashinkii lagama qaadin sidii bay u daadsan yihiin hataa lama nadiifin meeshii marka waxaan rabnaa meeshaas oo ah magaaladii runtii geesiyaashan ay ka soo baxeen magaaladii dagaalku jihaadku ka bilowday magaalada hadda saldhigga u ah ee lagu dego markii xataa deegaanadaas kale aan ciidamada u wadano magaalada dadkeedii oo dhan ay baxeen oo ay dagaalka jiraan magaaladaas waxay u baahan tahay garab istaag aan garab istaagno aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.